الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد وعين كل أحجرنا أحكامتي كورميسي نظام كصومك إسلام كأنه وجدي تضبات المسألة وكصاب سنة صومك أيينو سجود دول مريني سنة ضربة وحبينو كشجنا mararka qaarkood waxaa ku kordhinaa waxaa ka bedelnaa leena dadku way laawayaan marka si ay u yaraadaan su'aalaha soomka laga keenayo oo dadku ugu horeynba ay isaga sii ogaadaan ayaynu u soo celcelinaa su'aalaha waxa kamida qofka مثلا soomkii uu ku cuslaado maalinta kari waaya ka qabato kaajada uu xamili waayo isleeyahay waxay kugu keeni kartaa xanuun iyo halaag culimadu waxay isla waafaqsan inuu iska cuni karayo waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu walaa taqtuluu anfusakum inna allaha kaana bikum raxiima nafihina hadilina ilaahay uu idin naxariisanaya waxaa mithal ka mid noqon kara dadka shaqooyinka adag hayo kale xamili waaye markaa shaqadii adkayd marka horebana inuu xal raadiyaa muhiima qofkaas oo bishan ramadaan haddii uu islee shaqada iyo isku wadi kari maysid iyo cibaadada ramadaan inuu fasaxiisa ramadaan ku beegaa u wanaagsan sida dadka qaarkood oo dabadda ahi ay sameeyaan ama shaqadaba habeenkii uu ka dhigo oo waqtigii wax cunayee si uu isu waafajiyo diintiisa iyo dunyadiisa oo aanu diintiisa u ilaawin xataa waxa u furan inuu yiraahdo anigu bisha fasax baan qaadanaya mushaharna malihi amarku qofku cibaadada u dadaalayo laakiin ma oranayo soomkii shaqo adag baan hayaa roodhidan dubaayo warshad adag baan ku jiraayo maba soomaya ma oranayo waa inuu soomaa hadduu kari waana waa halkeeda waa taa aynu soo sheegnay waxaan iyagu fasaxa noocaas helaynin ama aan idhaahne aanay cudurdaar u helaynin ardayda dad baynu ka maqalnaa imtixaan adag baan ku jiraayo maanta xejin kari maayo ka odhanaya qaar dhalinyari imtixaanku wuu adag yahay maanta naqaskaa igu dhegaya xaraaraddaa igu kacaysa ma xejin karayo soomka uwa iska sii cunaya adaa waxay ka mid tahay iimaankiiyo daciifa qofka إلا قفك عبادة وحا أسهل إيمانك سو قوية عذر دار كم هلا يتا قفك مسائل كاوحا كم إذا هديد قال دعوه وضدك مسلمين تي عدو جاي جهاد لقلان حتى دلك وذا وكسوا ورينها هذا وصوم كيا يسقبان ويان يحبدي دقال كالا قفوريا يا ولا أفريا نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحاب تقول إنكم مصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا أرورت الدجال بين قلينا مركي فتح مكة لو يريي حرين مكة أفر كان إيدين أود بضل إن إسكعونتان إسكعون أبو نبينا عليه الصلاة والسلام مركا سفر قرين لقو حلاشنا يما هاد الدجال كلفتي سي دي لحيتين كروايو والله إسكاء فريا مسألة الله بيصدنا دوحوين من كان السبب فدره ظاهرا كالمريض فلا بأس أن يفطر ظاهرا قفكو هدي حنون عذر دار كيسو موضة وتدكو إسكاء أركيا ثلوا قف بكاء دو حنون سنة يدي تشي سديفتو أي كم وقتال أركيو تدكو أركيا وحباء وإسكاء كريا لكن هدي قفك عذر دار كيسو قرسوية مثلا واقف مسافرة وروح مران ظاهر هين وحفي عندك هرتو ذين أنا كعنين يضل أركيو سببتنا وحويان دولة تومية حال الله رنا يا كاسوا منافقة ما بصوا مضى شرفتي سامي لقد عيا سببنا وحو نقنا يا ضدكو إني حنطان عردقاقنا ضدك looma bandhigo si aanad u fitnaynin dadka
masaa'ilka waxa kamida waxa shardiya soomka habeenkii in la soo niyoodo habeenkii waa soomka faralka ah nabiguna calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu ku yiri qofkan habeenkii niyada soo go'aaminin maalintii soom uma jiro tiirarku ku taagan yahay soomku ka horeeyaba inuu qofku niyo la yimaado inama al-a'maalu bin-niyaat sidaa waxa ka duwan soomka sunnaha ah oo isagu maalintii buu bilaabi karaa gelinka hore qofku haddaan waxba soo cunin niyadana in la isku mushkiladeeyo maaha oo qofku uu nawaytu ku celceliyo waayo nabigaana ka soo aroorin sallallahu alayhi wasallam culimada qayb kamid way sheegeen kutubahoodana way ku qoran tahay in nawaytu la yiraahdo sida madhab shaafiiciya ay qabaan laakiin daliil baan lahayn shayguna hadaan u daliil lahayn lama cuskanayo madhaba jumhuurtu waxay qabaan in nawaytu daa la oranayn qowlka jumhuurta daliilku xoojinaya masaa'ilka waxa kamida qofku hadii uu niyoodo inuu iska jabiyo soomkii iska afuro miyuu ka jabay mise kama jabay mas'ala khilaafiya weeyo culimada qaar kood yiraahdaan uu ka jabay laana uu tiirarkii soomka mid kamida buu jaray qayb kamidna waxay leeyeen ma ee kol hadii aanu waxba kol hadii aanu cunin kaba jabayo almuhim waa inuu iska ilaaliyo qofku kol hadii lagu murmayo khatarta ay leedahay masaa'ilka waxa kamida qofku hadii uu soomkii bilaabo oo soomkaasina uu yahay soom waajib ah isaguna waa laga maarmaan inuu dhamaystiro soomku waa midna waa ramadaan waa soomkii kafaara gudka ahaa waa soomkii uu ku nadray mar hadduu qofku bilaabo inuu ka baxo oo uu iska cuno xaraan weey la wafarale laakiin soomka sunnaha sida uu faralka niyada uga duwanaa halkana uu uga duwan yahay oo qofku isagoo sooman bila cudurdaar uu iska cuni karaa almutadawwi'u amiru nafsi qofka sunna sameynaya naftiisa isaga u madaxa isagoo sooman baa saaxiibadii ay yiraahdeen cun casuumadan iska cunaya xaq buu leeyahay ka sugnaatay nabiga calayhi salaatu wasalaam sidii asxaabigii Salmaan iyo saaxiibkii dhaxmaraysay marka arintaasina waa mid ay ku kala duwan yihiin soomka faralka ah iyo soomka sunnaha ah soomka masaa'ilkiisa aynu xusayna waxa kamida qofka midal maxbuuska ah sajiinka ah ee xabsiga ku jira garan bala waqtiga ay ramadaan bilaatay ila qabun baa lagu ridi karaa musiiba ku heli karta dad xun baa ku helaya oo diintaada iyo iimaankaaga midnaba aanu muhiim u ahayn ama muslim ha sheeganaya ma gaale igaasa qab lagu ridaya qofka sooniya salaad meel ay wax marayaan maalin iyo habeen ma yaqaanaba sanadu ku jiraya sida wuxuu yeelayaa uu dadaalayaa un qofkaas waqtiga salaadii la noqotaa buu tukanaya salaad hiblaaye waqtiga ay la noqoto duhurkii casarkii waqtigu malayaa buu tukanaya qiblada dhinaca uu maleeyo ayuu tukanaya ramadaanna waqtigu uu maleeyo buu tukanaya hadii cid looga qaateynaya u sheegto la yiraahdo adduunyada waad ka soo maqan tahay bishii maanta ay ku beegantahay ramadaan oo cid uu looga qaateena warka uu ka helo uu bilaabi hadduu cid wax u sheegtayna waayo uu dadaali markuu haddaba dib u soo baxuu ogaado tirsigii xisaabta haddii soomkiisii oo ramadaan ku beegmayna war wanaagsan weey hadduu ramadaan ka dambeeyeyna war wanaagsan weey hadduu laakiin ramadaan ka horeeyay uu soo qalaynaya ila wala seegay markan uu ramadaan ugu beegantay waa sax markan uu ramadaan ka dambeeyna qalay u noqonaysa oo cudurdaar u leeyahay oo soo qalay laakiin markuu ka horeeyay wala seegay markaana uu soo qalayn doonaa sida wuxuu la mid ah haduu badhna la helo badhna la seego bishii ramadaan intuu la seegay ayuu soo qalaynaya ka horeysay
qofkaana jawaabtiisu waa caynka masaa'ilkaas waxaa ka mid a masalada afartanaad qofka jooga adduunyada meel ka mida oo aanay isku dhadhoweenaynu isu dheelitirayn habeenkii iyo maalintu muxuu yeelayaa sida waddamadan noorboolka meeshan la ydhaa ku yaalla waqooyiga adduunyadoo kale iskandanefiyanka iyo wixii la mida oo aynu ognahay in marna habeenku aada u dheeraado marna maalinkaa dheeraada waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood inuu 20 saacadood gaadho habeenku ama maalinkaa 22 gaadhaya hadda wax casrigan aynu joogno ee 21 xagaa buu ku beegmaa maalinkooduyo meelaha qaar buu noqonayaa 22 waxaa ka soo hadhaya habeenkiiba saacad ama laba culimada waxa ay ku tegeen meeshaas intay habeen iyo maalin kala soocan leedahay habeenkiina wuu cunayaa maalintiina wuu soomayaa hadduu doono maalinku 21 ama 23 ba ha ahaado qofkii haddii uu karo oo sidaa uu ku xejin karana way fiicanta fa biha wa nicmat hadduu xejin kari waayo islaada gaajaad u dhimanaysaana hore inuu soo sheegnay inuu iska cuni karo oo ayaamaha gaaban uu soo qallayn karo laakiin uma badheeri karayo iyadoo qoraxdu soo jeedo inuu wax cuno qowlkaasay u badayna aimada casrigu haddii laakiin ayaamo kooban weeyaan aanay jirinba wax qoraxa hoo soo baxaysa oo muuqanaysaba markaa beledka ugu dhow buu raacayaa meesha ugu dhow ayuu raaci doonaa waktigaas oo maalinkiisa uu ku qiyaasanaya waxyaabaha muftiraadka ah ee soomka jabiya waa laba qaybood si guud marka loo eego nawcu listifraaq wa nawcu limtilaa bay idhahdaan waxna waa wax qofka gala waxna waa wax ka soo baxa labadaasaa ay u qaybsamaan waxa jabiya dad waxyaabaha ka soo baxaya waxaa ka mid a jimaacii galmaduu samaynayey iska hunqaacintii dhiiggii caadada kii dhalmada toobinkii uu qofku istoobayuu dhiigga iska keenaya waa culimada qayb ka mid a qabe kuwaas waxa weye wax ka soo baxay baa jabiya mima kharaj wax ka soo baxay buu la jabaya waxyaabaha qaarkoodna waa baabulimtilaa wuxuu isku shubay sida cunistii iyo cabidii iyo sucuudkii wuxuu sanka iskaga shubay waxyaabahaas weeye labada qayboode jabinayaba inuu iska ilaaliyaa waxay ka mid tahay soomka arkaantiisa iyo tiirarkiisa qofku haddii ay dhacdaba inuu wax cuno isaga oo ama wax cabo isagoo is-ilowsan soomkiisi kama jabayo sida aa aragteen marar badan iyo ama maqasheen iyadoo dee laga hadlayo nebiyullaahi maxamed baa inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam qofka cunee caba isaga oo isilowsan ha dhammaystiro soomkiisa fursad buu helayoo ilaahay baa cunno iyo cabid siiyey adiguna haddaad aragto qofkii oo isilowsan oo cunaya oo cabaya waa inaad u sheegtoo tidhaahdo ka daah oo waad sooman tahay jooji waayo nebigu waxau ihi faidaa nasiitu fadakiruunii anigoo cibaadada ku jira haddaan isilaawo oo aan wax qaldo ixusuusiya buu markaa qof kasta oo cibaadadii qaldaya ama qalloocinayo isagoo isilowsan waa la xusuusinayaa watacaawanuu cala albiri waataqwa baabkeediina way noqonaysaa masaa'ilkaa waxaa ka mid a haddii qofku uu soomkii jabiyey intuu wax cunuu wax cabaabuu jabiyey isagoo doonaya xaaskiisa inuu galmoodo kana cararaya kafaaradii gudkii weynaa ee 2 bilood soomkooda ah maxaa xukunkiisu noqonayaa 2 dembi buu ku dhacay ama 2 jeer buu jabiyey karaamadii iyo sharaftii ay lahayd bishani waa markanuu sameeyey qiildayga faasidka ah ee cunnada uu ku bilaabay iyo galmadii oo ka xaaraan ah sidaa daraaddeed wuxuu ku dhacay kabiira min alkabaa'ir galmo keliya hadduu ku jabin lahaa tanaba ka sii darabba ilaahayna subxaana wa tacaala waa qalbi jire waalumuuru bimaqaasidiha qofkana waxaa la eegayaa arrinkiisa kolba wuxuu uga qastay macnaheedu waxa weye taasi ka badbaadin mayso inuu kafaara gudkii la yimaado mar hadduu u jabinayeyba si uu arrintan u sameeyo waa lagu leeyahay inuu maalintaa inta ka hadhay afhaysto maalinkiina soo qalleeyo
kafaara gudkiina la yimaado dembigiisuna waa macsiyatan ashad macsiyo ka sii weyntii hore ee uu islahaa ka fako ayuu ku dhacay masaa'ilkaa waxaa ka mid a qofka hadduu waagu baryo isagoo jinaabo leh oo aan weli maydhanin ayuu waagi dilaacay dee wuu maydhanayaa salaaddii subax buu qofka horey ka tukanaya la odhan maayo iska jooji biyaha waa maalin ramadaane faral iyo sunno labadaba waa u maydhan karaa qofku bal wuu quusi karaa biyaha mar haddaanay sankii iyo dhagaatoona ka gelayn laakiin dabaashu sax maaha waxaan had iyo jeer dabaasha laga aamin ahayn inaad liqliqdo biyaha si qasabaad u liqliqaysaa mar haddaad dabaalanayso sankana way kaa gelayaan sankana nebigu calayhi salaatu wasalaam in biyaha lagu shubo waa diiday waxa uhi wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman xadiidkii laqiid wuxuu biyaha aada sanka gelinaysa markaad weysaysanayso fiif dhebuudha xagga sare geli ilaa inaad sooman tahay mooyaane xadiidkaa saxiixa waxaa laga fahmay biyaha sanka lagu shubayaa inay soomka jebinayaan markaa dabaashii midaad liqda iyo mid sanka kaa gala labadaasaa ku badan laakiin si yaroo kooban hadduu qofku jaf u yidhaahdo ou quuso waxna aanay maaragtay gelin iyadu dhib ma laha markaa maydhigii qabowsiga ahaa iyo maydhigii jinaabada iyo maydhigii waajibkaha iyo kii sunnaha mid walba qofku waa maydhan karayaa bishan dhexdeeda waxaa masaa'ilkaas ka mida qofku haddii hunqaacadu ka xoog badato soomkiisii wuu iska dhammaystiranaya waa luqluqanayaa wuu afdhaqanayaa afkiisuu nadiifinayaa wuxuu iska ilaalinayaa wax uu liqaa inuu jiro wixii ka soo baxaba wuu soo dayn laakiin si qasaba wixii ugu noqdaa dhib ma leh mararka qaarkood baa qofku wixii ka soo socday wuu soo wadi karayaa aanu soo wadiba karayn oo qasab ugu noqonaya kaasi dhib ma laha laakiin wixii ka imanaya o dhan waa inu isdhaafiyo afdhaqdo hunqaacadii mar hadday ka xoog badatay dhibaato ma laha ilaa inuu isagu iska hunqaaciyo mooyaane waxaan dhib lahayn cadaygii walow muudba ha lahaado oo caday qoyanoo muudlaba ha noqdee wax dhibaato ah ma laha ee soomkiisii qofka sax buu noqonayaa masaa'ilkaa dareeriska ama qubanaha ah aynu soo koobkoobnay waxaynu uga jeednaa in dadku dee ay dhagaha ku qaataanoo qofku wixii uu ka shaki lahaa cibaadadiisa ugu horeynba ama musabaqan uu cilmigeeda yeesho allah inagu anfaco dembigeenna iyo kii waalidkeenna allaha dhaafo cibaadadana allah inagu anfaco raali noqoshihiisana allah ina siiyo sala allahu calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi waslem subxaana rabbika